بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال halka aad naga daawanaysaan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa wadanka Finland khaasatan magaalada Helsinki daawadayaal waxaa maanta barnaamijkeena uu ku saabsan yahay oo halkan marti noogu ah gudoomiyaha ururka taqaatiirta Soomaaliyeed ee wadanka Finland ahna taqtarka howlgala isbitaalaadka wadanka Finland دكتور محمد عرتن دكتور محمد عرتن كسو دو تلفزيون قناه الصوماليات عبد العزيز كوضح ما تسرد داوديال inta badan barnaamijyadeena gaarka ah waxaan ku soo qaadanaa waxyaabaha aan isleenahay bulshada Soomaaliyeed wax bay u tarayaan khaasatan telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxa uu dhiirigeliyaa qaybaha kala duwan aqoon-yahanada Soomaaliyeed hadii ahaan lahayn kuwa wadanka gudihiisa ku nool iyo hadii ay ahaan lahaayeen kuwa wadanka dibadiisaba ku nool hadaba waxa maanta halkan marti noogu ah Dr. Maxamed Cartan oo aan rabo ugu horeyn su'aasha ugu horeyso oo aan weydiinayo waxa ay tahay Dr. taqaatiirta wadankan degan iyo guud ahaan ururkiina hadii aad wax yar oo kooban warbixin naga siiso mahadsanid Cabdicasiis muddo dheer bay qaadatay dhisitaanka ururka dhaqaatiirta ama bulshada weynta caafimaadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Finland maaha ururka dhaqaatiirta kaliya kuma jiraan waxa ku jira neeraska ku jira waxa ku jira macnaha radio technicianska dadka la yiraahdo oo iyagu ku takhasusay qalabada wax lagu sawiro ama ha noqoto x-ray ama af Soomaaliga hadii lagu sii jilciyo khashaafada CT computer tomography afka Finnish-ka theater tomography iyo MRI bahasha la yiraahdo ama magnetic resonance imaging la yiraahdo dad qaada oo ku takhasusay waa kamid ah tirada ku jirta ururka dhaqaatiirta ama bulshada ama ururka caafimaadka ee Soomaalida ku dhaqan wadanka Finland ururka hadda muddo 10 sano u dhawaad ah buu jiray marba tiradiisii way sii badanaysay runtii dhowr qof ama dhowr dhakhtar baan isugu nimi saddex dhakhtar baan ku bilownay asaaskii ururka waxay jiidantaba waxaanu gaadhnay ilaa inaanu isugu nimaadno dhakhaatiir gaaraysa 10 ka bacdina aanu u soo bandhignay dhammaan dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Finland oo ku shaqeeya caafimaadka sidaas awgeed hadda ilaahay mahadiis ururka xubnihiisa dhaqaatiirtu way kordhayaan marba marka ka dambaysa oo waxa soo baxaya dhaqaatiir cusub oo wax ku baratay wadamadan bariga Yurub sida Romania iyo Hungary iyo waliba Ukraine waxa kaloo jira gabdho badan oo Soomaaliyeed iyo wiilalba oo neerasa oo jooga wadanka ama laboratoryga laftigiisa ka shaqeeya marka ururku wuxuu qabtaa shir sanadeed iyo mararka qaarkood shirar aan caadi ahayn hadii loo baahdo oo kale mana shirar dheeraad ah hadii loo baahdo ama wax degdeg ah ay hadii kalifaan in la qabto wuxuu leeyahay xiriir joogta oo macnaha lagu wada xiriiro emailka ama internetka hadii loo baahdana guddiga fulinta ururku waxa weeyo oo ka kooban 5 xubnood waxay kulmi karaan markasta oo macnaha loo arko inay tahay muhiim hadii ay timaado baahitaanka lifta ururka xubnihiisu waxay ka qayb qaateen shaqooyin badan oo wadanka laga fulinayo waxay la shaqeeyeen IOM International Organization of Migration project media project layli oo loogu talagalay gobolada waqooyiga Soomaaliya in laga fuliyo Puntland iyo Somaliland waxa ka howlgalay dad badan oo xirfadlayaasha caafimaadka ah oo ururka ka tirsan qofka ugu yaraana uu ka soo shaqeeyay 6 bilood dadka qaarna hadda 2 sano ay marayaan intay ka shaqeynayaan marka isku warhan joogta aba jirta waa isku xidhanahay shirar gaar ah qabanaa waxyaabaha marba aan u aragno bulshada inay u baahan yihiin
in laga wacdigeliyana waanu isu kala qaybinaa sidii macnaha ninba meeshaas ama qof gabadhba ama ninba meeshu ku habboon yahay uu uga hadlo ama u gaarsiiyo warka aan u aragno inuu muhiim yahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankeena ama guud ahaan Soomaalida ku dhaqan ama qurbaha ama Soomaaliyaba. Doctor aad baa u mahadsantahay warbixinta guud ee aad nasiisay. Dabcan ururkan dad tiro badan ayaa kamid ah, asaaskiisana sida aad noo sheegtay 3 dhaqaatiir ah 3 dhakhtar oo Soomaaliyeed ayay ka bilaabatay. Dabcan sidaan la socono ururkan wadanka Finland ka sokow xiriir ma la leeyihiin Scandinavian oo kale sida Sweden, Denmark, Norway, xiriir idinka dhaxeeya ma jira? Cabdicasiis waxaanu leenahay xiriir joogto ah dhaqaatiirta ku dhaqan wadamada la isku yiraahdo Nordic countries-ka ama wadamada waqooyiga Yurub, Sweden, Norway, Denmark iyo Sweden, Norway, Denmark iyo Finland ba dadka dhaqaatiirta ku dhaqan shirarna waanu wada galay, xiriir joogto ah waanu la leenahay. Hadda laftigeeda waxa dhawaan la qaban doonaa shir dhaqaatiirta Scandinavian isugu imanayaan baa lagu wadaa in lagu qabto Copenhagen ilaa bisha 10aad lagana yaabo dhaqaatiir ka socota qurbo joogta Soomaaliyeed Yurub ku dhaqan iyo North America inay Muqdisho tagaan oo halka ku qabtaan ku aasaasan urur ka fikira baahida loo qabo caafimaadka macnaha hadda xilligan xaadirka dhibaatada wadankeena ka taagan dhibaatada ugu daran macnaha caafimaadka inay ka geystaan gacan inta aqoontooda ah dawladana kala taliyaan sidii wax looga qaban lahaa arrinta caafimaadka ee taagan. Dr. Cartan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ku aadan dadka dhaqaatiirta ah ama dadka nurseska ah ee la shaqeeya dhaqaatiirta ama dadka kale kalkaaliyaasha ah sida kalaba waxyaabaha kale ka shaqeeyaba ama x-ray-da hadii ahaan lahayd dadka Soomaalida sidee looga tixgeliyaa wadankan Finland? Markay noqoto shaqada professionalka wax dhibaato ah badana lagalama kulmo markaad qofka la shaqeynaysid ama ha noqoto dhakhtarka kale aad la shaqeynaysid ama ha noqoto neerasta kula shaqeynaysa ama patientka aad markaa laga yaabo ama daweynaysid ama qalaysid ha noqote. Maanta waxaan qaabilayay patientada anigu waxaan ahay macnaha dhakhtar qalliinka especially orthopedic dad waxaan qaabilayay waayeel oo rugaga iyo miskaha la rabo in loo geeyo prosthesis ama hip iyo knee replacement lagu sameeyo hadii gashka la yiraahdo macnaha dadka waayeelka ee jirooyinka lafaha ku dhacaan oo markaa keenaan xanuun ay ka socon kari waayaan marka la geliyo biro dadkaasaan qaabilayay. Marka waxaan intaan qalliinka ka hor la gaadhin waa inaad qofkii la kulantid ka bacdi macnaha aad u sheegtid macnaha sidaad u baadhaysid iyo markaad qalaysid wax noocaas qofna ima tusin wax calaamad aan dareemo inuu diidan yahay ima tusin. macnaheedu waxa weeye way dhici kartaa qof inaad la kulantid waa dad fara badan laakiin dadkan waxay aaminsan yihiin qofkan de shaqadiisa inuu qabsanayo marka badanaa hadda dhibaato aan taaban karo oo joogto ay haysa ama dadka Soomaalida dhaqaatiirta kale waxyaabo qof shakhsiya uu iman karaayo dhibaato kugu sameeya laakiin guud ahaan dadku si fiican bay wada shaqeyntu ugu hergashaa. Doctor sida aad hore uga dhawaajisayba Nordiga waxa ay leeyihiin isku taga dhaqaatiirta ururka isku taga dhaqaatiirta Soomaaliyeed shirkoodana wuu soo socdaa. waxaadna cadaysay in mustaqbalka ay tegi doonaan intii guddi la magacaabo guddigaas tagaan baahida wadankii looga baahan yahay iyo waxyaabahaas inay kasoo baaraan degaan. adinka ka urur ahaan ka Finland ahaan ururkiina dhaqaatiirta wada shaqeyn wadankii mid ka dhaxaysa macnaha
sidaan xusay dhakhaatiir badan iyo neras iyo laboratory iyo radio technician xirfadlayaal ah waa ka howlgala xilligan xaadirka ah labada gobol ee wadanka aynu carabka hore ugu dhiftay. haddana waxaa suuragal ah in muqdisho laga sameeyo projectigan oo kale si ay u tagaan xirfadlayaal kale gobolada dhexe iyo muqdisho. suuragal haddii ilaahay ka dhigo waxaan rajaynaynaa inuu mustaqbalka ka hirgalo. marka sidaas awgeed dhakhaatiir iyo xirfadlayaal kaleba way joogaan oo ururka ka tirsani wadanka qaybo ka mid ah. insha allahna inay tiradaas ka badato baanu rajaynaynaa. waxaanu rajaynaynaa inaanu Soomaaliya waxaa far kaliya fool ma dhaqday anagoo wada socona aanu wadankii marka hore soo sameeyno assessment ama aanu soo qiimeeyno baahida jirta aanuna isla aragno sidii aanu anagu haddaanu iskaashano oo aanu wadankii tagno aanu wax uga qaban lahayn. caqabado badan baa jira oo xaqiiqdii mararka qaarkood ishortaagaya wax kastood qorshaysay inay sida artay u suuragalaan, laakiin ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inay wax badan fududaadaan. haddii aan usoo laabto wadankan Finland iyo gudihiisa maxaa la yiraahdaa sidee ayaad u aragtaa qabashada seminaarada dhakhaatiirta kale dadka kale ee maaragta Soomaalida waxyaabaha soo kordha cudurrada soo kordha adduunka oo kale ma gaarsiisaan dadka Soomaalida ah mise guud ahaan maadaama aad la shaqeysaan isbitaalaadka Finnish-ka wadanka uu yahay wadankii Finland waxa aad mar walba marka culays ka saartaan guud ahaan dadka Finnish-ka ah mise dadka Soomaalidana qaasatan waa siisaan warbixinadan guud? xaqiiqdii barba waxaanu fiirinaa arrinta markaa taagan ayaan fiirinaa dhibaatada markaa taagan ka bacdi waxaanu soo jeedinaa muxaadarooyin maadaama aynaan lahayn xarun weyn oo aynu wax ku qabsano. meesha ugu wanaagsan ee la isugu iman karaa waa masaajidka. marka masaajidadan waxaan kasoo jeedinaa muxaadarooyin marba ku saabsan arrinta waqtigaas aan u aragno inay muqadas tahay ama baahida dadka markaas ugu daran. markaas fiilan aan ka shaqeyno, laakiin dadka Soomaalida ah Soomaalida waxaa jirta biyo sacbadaada lagaga dhergaa. marka waxaanu aada u jecelnahay inaanu af Soomaaliga ku gaadhsiino oo ugu sharaxno wixii ay kaga dhergi waayeen luqadda Finnish-ka. haddii aan su-aal kaa weydiiyo marka ku saabsan dhinaca iyo dhakhaatiirta halkan joogta isla mar ahaantaana ka howlgasha isbitaalada maaragtay wadankan Finland iyaga tiro ahaan intay gaarayaan yani meeqa ayay ka kooban yihiin? haddaan macnaha guud ahaan kuu sheego tirada dhakhaatiirta ee joogta Finland waxaan ku qiyaasayaa 20 ilaa 25. hadda maalin kasta liiskii wuu soo kordhaa, marka tiradii go-onayd oo saxa kuma siin karo. waxaa joogta dhakhaatiir fara badan oo Soomaali ah oo aan lahayn laysanka ay wadanka kaga shaqeeyaan. marka hadday ugu yaraato 25 dhakhtar way noqonayaan guud ahaan. laakiin waxaa jirta arday badan oo dhakhaatiir waxbarashada hadda ku dhex jira oo aanu mustaqbalka rajaynayno inay tirada soo badiyaan ilaa 10 waa ku maqan wadamadan bariga. dhowr ardayna waxay kasoo baxeen wadankan Finland bay hadda waxbarashada dhigtaan oo inay kasoo baxaan aan rajaynayna haddii lahayd. daawadayaal dadkiinana daawanaya nagu soo biiray waqtigan waxaad naga daawanaysaan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed. waa barnaamij gaar ah oo maanta uu marti noogu yahay Dr. Maxamuud Maxamed Cartan. doctorkan waa gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee wadanka Finland isla mar ahaantaana doctorka waxa uu ka howlgalaa isbitaalaadka wadanka Finland. doctor waxaa igu maqaalo ah in aad safar ku tagtay wadankii Soomaaliya oo aad muddo dhow ka timid. haddii aad si kooban iigu sharaxday safarkaaga iyo sida uu kuugu hirgalay. mahadsanid Cabdicasiis. runtii aada iyo aad baan ugu farxay inaan helo chance aan ku tago Soomaaliya. sidaad ogtahay baa
badanaa wadankan qofkii shaqeeyaa leeyahay fasax, adiguba aad fasax bil u leedahay. marka bishaydii fasax ahayd ramadaan maalintay dhamaatay baan ka tegay Finland oo aan aaday Soomaaliya. aan aad runtii u jeclaa inaan soo maro marka intii suuragal ii noqotay inaan gaadho. waxaan ka tegay Berbera, ka bacdi waxaan imi Hargeysa, habeen baan joogay, ka bacdi waxaan ka soo baxay oo waxaan imi Boorame, 3 habeen baan joogay. waxaan ku soo noqday Hargeysa, ka bacdina waa soo safray, waxaan imi Burco, waxaan joogay Laascaanood baan gaadhay, iyadana waxaan gaadhay Garowe iyo Qardho. saasaan safarka dhulkaana maray. anigaana baabuur aan macnaha kaga baxay Hargeysa ka haystay oo wadada keligay baa maray. aad baana waxaan ula yaabay dadku siday ugu nool yihiin, isaga nool yihiin oo u faraxsan yihiin. waxyaabo fara badan oo sidii aad rabtay ama aan ku aragnay dhulkan aan ku noolahay aan ahayn waad arkaysaa. laakiin waa dhulkeennii weeye oo cid kale inay wanaajiso waxaynu sugayno maaha. waa waxaan inaga maqnaanshahan wadanka ka maqanahay baa keentay. xoogeennii baynu la maqanahay, aqoonteennii baynu la maqanahay. sidaas awgeed waxaad dareemaysaa nin kastoo inaga mid ah xirfadiisa sida wadanka looga baahan yahay. maaha dhakhtar keliya, wariyaasha loo baahan yahay oo professional ah oo garanaya waxay qabanayaan, shaqo saxa qabanaya. waxaa loo baahan yahay ninka macnaha dadka ama electric engineer ha noqdo ama biyan ha noqdo ama dhisma ha noqdo, nooc kasta oo shaqo oo qof bini aadan qabto wadankeena waa looga baahan yahay. marka cid kasta oo halkan joogta ama dibadaba uga soo baxday wadanka waa waxa inuu sugayo in wax la wanaajiyo waa inuu isagu marka hore fiiriyo shaqadiisii inay ka maqan tahay wadanka. taas hadduu qaban lahaa wadanka ka qaban lahaana ay wax weyn ka kabi lahayd, muuqaalka wadankana wax weyn ka bedeli lahayd. sidaas awgeed waxaan soo indheeyay aniga macnaha niba meesha ku taysay balbashaaba Soomaalidu tiraahdaa anigu isbitaalada waxaan kaloo la kulmay xirfadlayaasha caafimaadka. waxaan booqday dad iyagu markaa qaliin u baahnaa, waan soo booqday, isbitaalka ugu tegay. marka waxyaabo cases aan la soo yaabayna waan soo arkay oo igu sii adkeynaya, igu dhiirigelinaya inaan wadankii ku noqdo ama ka shaqeeyo haddii Ilaahay idmo. doctor, waxyaabaha baryahan dambe sida idaacadaha iyo dhammaan guud ahaanba maaragtay lagu soo tabinayo wadankii Soomaaliya, magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka bilowday cudurka la yiraahdo dabeysha la yiraahdo. kadibna waxa uu ku faafay ilaa iyo hadda sii socda, maalinta ka dambeysana waxaa lasoo helayaa waxyaabo cusub. muddadii aada joogtay ma la kulantay dad noocaas oo kale ah ama cudurrada noocaas oo kale ah? haddii aada aragtayna guud ahaan ka takhtar ahaan waxyaabaha dadka looga baahan yahay ama looga hortegi karo ama fikir ahaan maxaad usoo jeedin lahayd maanta, maadaama aada tv-ga qaranka aada joogtid lagana daawanayo adduunka dacaladiisa oo dhan iyo dhammaan gobolada wadanka oo dhan? arrinta ugu muhiimsan ugu dhaqsaha badan waxa weeye canuga haddii la arko in uu maaragtay muruqyadiisii ama kuwa macnaha gaar ahaan kuwa lugaha uusan ay sidooda caadiga ahayn, waxaa laga yaabaa de qofkaan dhakhtar ahayn inaysan toos u garan, laakiin waxaad ka garanaysaa socodkiisii baa isbedelaya, xanuun fara badanna uu ku yimaado oo aada dareentid dee lugtii inuusan caadi u soconayn. sida ugu dhaqso badan in dhakhtarka loo geeyo baa aada iyo aada u muhiimsan oo markaa dawooyin loogu bilaabo si dhaqso ah. maadaama dadkeenii 65% ay baadiyaha ku nool yihiin, waxaa aada u adag siday u fahmaan jiradan. markaas waxaan arrintaa laftigeeda isla qaadaa dhignay dhakhaatiirta wadanka aan kula kulmay oo iyaga laftigooda arrintaa ka warwarsanaa. runtii Muqdisho keliya maaha ee cases baa lagu arkay waqooyiga wadanka laftigiisa. sidaas awgeed waa dhibaato wadanka oo dhan saameyn ku samaysa. mararka qaarkoodna waxaad odhanaysaa oo yaab leh dadkan ka shaqeeya tallaalka oo kale inay arrintan iyaga laftigoodu buunbuuniyaan si loo sii wado
tallaalada iyo kambeynada ama ololayaasha tallaalka ee ay wadaan. marka taa laftigeedu waa dhibaato jirta. laakiin cudurka dabaysha ama poliomyelitis la yidhaahdo waa cases waa la jiraa cases la sheegay, waana in aada arrin u culus loo arko, marka qofka mustaqbalkiisa oo dhan saameyn bay ku sameynaysaa. doctor, marka arrimaha waxyaabaha markii aad tagto wadanka cudurrada kugu yaabka badnaa ee aada soo aragtay ama waxyaabaha aada is leedahay waa haddii reer Finland, maadaama aad Finland hadda joogto oo gudoomiye ururka takhaatiirta tahay, waxyaabaha aada u baahan tihiin inaad ka shirtaan takhaatiirtiina oo aad takhaatiirtii wadankana la wadaagtaan, waxyaabaha ugu dhibka badan oo aada is leedahay hal iyo laba ma ka taataaban karta? waxa weeye ma joogaan dhakhaatiir takhasus leh guud ahaan, aada bay u yaryihiin. waxaa wadanka kusoo batay dhakhaatiir laga soo kaxaystay ama wadamadan bariga Yurub, Ukraine, Ruushka, Romania ama wadamada Hindiya iyo Pakistan. cid aqoonsigooda iyo waxay barteen weydiisay oo ka warhaysa ma jirto. urur dhakhaatiirta caafimaadka Soomaaliyeed ah oo xoog leh oo dadkan controla ma jirto. dawada sida raashinka loo dhigo maqaasiinada camal baa wuxuu isaga yaal meel diiran in la dhigaa, ma meel qabow in la dhigaa, cid aad kala hadli kartid ma laha. teeda kale dawooyinka maraan tegay Kenya qaar waxaa la iskaga sameeyaa meel maqaasiin camala baa nin mashiinad yar iska haystaa waxaan ku sameeya, marka iyagu jaban uun bay iska qaadanayaan, laakiin dawada quality-geeda wax control laftigeedu ma jiraan. waxyaabaha kale oo mudan xusid waxaa ah ma jiraan dhakhaatiir takhasus lesaan hadalka ku xusay bilowgiisa. waxaan kayskii ugu yaabadnaa anigoo laasaan jooga laga soo wacayo nin baa lagu tooreeyay magaalada wiil, ka bacdi waxay noqotay in la qalo. dhakhtar qaliina ma joogo magaaladan. waxay kaliftay nin neeraso runtii aada u maskax badan oo la shaqayn jira dhakhtar qaliin ah inuu qalo oo sameeyo laboratomy ama caloosha qalo oo furo caloosha dhan oo ventricaliga ama caloosha inta maaragtay raashinku galo oo dalooshantay uu soo talo. marka taasaan soo arkay, waxyaabihii iga soo yaabiyey bay kamid ahayd. dadku lacag la-aan maaha, lacag bay way haystaan, laakiin ma garanayaan nolosha wixii muhiimka u ahaa. taas waa dhibaatada ka jirta wadanka. markaas aada iyo aada aniga waxa aan uga fekeraa markasta waxyaabaha kaloon soo arkay waxaa kamid ah dad macnaha 10 sano u dhawaad ama 8 sano u dhawaad la qalay oo bere la geliyay, meelihii berihii laga geliyay lugtii ayaa boolaamayn ama meeshiiba infection ku jiro oo intaasoo sano la dhayayo. bere saxna lama gelin, si saxna lama gelin, lacag fara badanna waa laga qaatay. waxaan soo arkay qaar shaqadan hadda ka qabta Finland rogaga loogu soo geliyay prosthesis Kenya oo lacag fara badan laga qaatay. dad labada rugba loo soo geliyo laga qaatay $10,000. haddana sida wax loogu geliyay ayaan sax ahayn, uusan qofkii socon karayn. wax dambe oo control iyo cid ka warhaysa dambe ma jiro. lacagtii mar baa laga qaatay, iska tag lagu yiri. marka dhibaato fara badan ayaa jirta. dhinac kasta baahida caafimaadku way muuqataa. marka dhakhaatiir wada socota inay tagto baa muhiim aada u ah, iyadoo la sameeyo xaruno caafimadeed oo runtii si saxa u shaqeeya, lana isticmaalo qalabka nimankan reer galbeedka inkastoo qaali yihiin. si kasta ha loo maree in intii wax lacag la isku dardaro ama macnaha hay-adaha waxbixiya lala kaashado la sameeyo in qalabka wadankii la geeyo, weliba la isticmaalo iyagoo second hand, iyagoo cusub lama gadi karo, lacag fara badan bay joogaan iyagoo jaban. laakiin birahan dadka la gelinayo kuwan caadiga ah ee wadamadan galbeedka lagu sameeyo la isticmaalo lagu qalo. sidaas awgeed waxaan aada iyo aada usoo jeedinayaa ama waxyaabaha iga yaabiyay aniga oo aan u arko inay muhiim tahay
in maaragtay wax laga qabto ay tahay in takhasus kasta ama nooc kasta qeyb kasta oo caafimaadka ah baahida ka jirta wax hadal yar lagu soo koobi karo maaha. marka waa waxyaabaha nagu kalifay inaanu anagoo kooxa isu tagno oo brainstorming sameyno, bal maskaxdii iyo fikradihii isu keeno saanu isula aragno wixii ninba la qumanaa oo aanu markaas iskaashi sameyno. aqoonta waxbarasho ama tayada waxbarasho ee jaamacadaha caafimaadka ee hadda ka jira wadankeeni khaasatan Puntland oo kale. maalin dhaweeta mar uu halkan nagu soo booqday madaxa jaamacadda bariga Afrika, waxa uu noo sheegay sanadka soo socda in ay ka qalin jibin doonaan tiro boqolaal ah oo takhaatiir ah. marka ma isleedahay xoogaa way caawin lahayd haddii ay takhaatiirtaas tirada badan ay soo baxaysa, maadaama ay aqoonti gaarsiisneen tii halkan oo kale, laakiin at least way caawin karaan ardaydaas tirada badan leh ka soo baxaysa meesha. xaqiiq weeye, macnaha dhakhtar kasto ama qof kastoo xirfadla oo soo saa'ida inuu macnaha waxtar ka geysanayo dhibaatada runt hadda ka jirta wadanka. sidaas awgeed waa kugu raacsanaya Cabdicasiis, tirada dhakhaatiirta ee soo kordhaysa ama xirfadlayaasha soo kordhaya aada iyo aada bay waxtar uga geysanaysaa baahida xilligan xaadirka ka jirta wadanka, especially goboladaas hadda xustay. haddii aan usoo noqdo marka wadanka Finland, adinka ka urur ahaan ma la xiriirteen hay-adahan caafimaadka ah ee wadankan si xataa haddii qalabkii uusan cusbeyn laakiin ay suubiyaan oo kale inay bedelaan qalabyadii oo kale oo qalab cusub oo kale ay qaataan kuwii hore xataa si ay uga faa'iideeyaan wadankii oo kale? ha wax fara badan baanu la Cabdicasiis la xidhiidhnay. waa arrin weliba muddo dheer aanu wadnay oo aan ahayn mar iyo laba toonna. badanaa qalabka caafimaadka oo kale waxa weeye qalabka caafimaadka waxa weeye iyaga laftigooda gaalada way iscaawiyaan. waxaad moodaa markii iyagu qalab bedelayaan wadamadan ugu dhow oo iyagu ka dhaqaalaha liitay gaalada ah baa ugu xaq leh. sidaas oo kale baad moodaa sidii ciidu fitriga maaragtay la siin jiray oo kale ba iyagii waqtiga Christmaska hadiyad uga dhigaan. marka taas laftigooda way jirtaa. siday kuu siiyaan qalab wanaagsan aada iyo aada bay u adag tahay, laakiin dhowr jeer baan isku daynay. waa adag tahay in la helo runtii ay qalab tayale ku siiyaan, laakiin waa la gadan karaa haddii ay yimaadaan dad raba inay runtii qalab gataan oo shaqeeyaan. qalab jaban oo markaas aan cusbayn baa la gadan karaa, la heli karaa. dabcan waxaan soo gaarnaa barnaamijkeeni qeybtiisii gabagabada, laakiin inta su-aasha ugu dambeyso mid iyo laba ayaan ku weydiin doonaa. ugu horeyntii takhaatiir maxaa dadka Soomaaliyeed ee degan wadankan Finland iyo kuwii wadanka hooyaba labadaba aad ka takhtar ahaan kula dardaarmaysaa gabagabadii? su-aal wanaagsan ya Cabdicasiis, mahadsanid. hawl adag baad bulshada u haysaa. sidii horeba aan u xusnay mararkii horenu wada shaqeynay. runtii baahida caafimaad ee wadanka taala waa ballaadhan tahay. waxay u baahan tahay iskaashi. dhakhtar kaliya oo dhakhtarka kale la shaqeeya dhakhaatiirtan wadanka kusoo arkay ma jiro. nin kasta meel buu furtay. wada shaqayntaana fududeysa iyo wada tashiga in patientka la daweeyo. waxaa dhacda isbitaalkan ka shaqeeyo 10 dhakhtar ama 20 dhakhtar inay hal case ama hal patient jiradiisa ka wada tashadaan wadankeena, laakiin dhakhtar kasta isagaa wax kasta yaqaan, iyadoon aqoon fara badan ay haddana jirin oo macnaha updating ama aqoon dheeraada uusan qofkii helin markuu jaamacadda ka baxay 20 sano ama 30 sano ka hor mooye. iyadoo ay taasi macnaha ay jirto aqoon dheeraad ay qofkii kusoo kordhin, haddana dhakhaatiirtii wada tashi kama dhaxeeyo. oo waxaad moodaa qof kasta business buu gaar u haystaa, mana rabo qofka kale inuu wax ku darsado. taasi waxay wax ku keenaysaa
patientkii dadka ahaa ama bukaan socodkii soomaalida ahaa inaad markaa uusan helin daaweyntii saxda ahayd. inay dhakhaatiirta jooga wadanka ay shirkoobaan oo u shaqeeyaan sidii group baan soo jeedinayaa, si aana ujeedada asaaska u ah shirkadaasi ayan ahayn inay lacag ahaan sii saa'ido keliya ee ay noqoto dadka in si loo daneeyo. dhakhaatiir takhasus kala gedisan lehina hal meel ama hal clinic isugu yimaadaan. waxaan kaloo soo ku darayaa dhakhaatiirta qurba joogta ah inay iskaashadaan laftigoodu si ay wadankii u galaan, isuguna dayaan inay wax ka bedelaan dhibaatooyinka aan xusnay. daawadayaal barnaamijkeenii gaarka ahaa ee maanta uu halkan noogu martida ahaa doctor maxamed cartan ayaan intaas kusoo gabagabeyneynaa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdicasiis goodax, farsamayaqaanka barnaamijka waxa uu ahaa amoros iyo soo saaristaba waa telefishinka qaranka soomaaliyeed ee Finland. doctor maxamed cartan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay booqashada aad soo booqatay. cabdicasiis goodax, thank you, aad baad u mahadsan tahay.